baardheere magaalo magaceeda ka qaadatay geed ay caan ku ahayd dadkii ugu horeeyay ee degayna ay ahaayeen xer doonaysay inay ka samaystaan goobo ay wax ku bartaan diintana ka faafiyaan ka hor intaysan madaxa istarin suldaankii saldanadii Galladi oo 40,000 oo askari oo uu hogaaminayay ay cagta sii mariyeen guryihii iyo goobihii ay culimadii xertu ka dhisteen baardheere muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonaa taariikhda iyo sooyaalka magaaladan magaca baardheere wuxuu ka soo jeedaa laba eray oo kala ah baar iyo dheer baar waa geed inta badan ka baxa webiyada hareerahooda wuxuu bixiyaa laamo xoog leh iyo caleemo ballaaran waxaana lagu dhistaa guryaha waqtiyadii hore baardheere ayaa caan ku ahayd guryaha laga dhisto tiirarka baarka sidoo kale waxay lahayd masaajid weyn oo ay ku dhex yaalaan geedaha baarka sidaasi ayuuna geedkan calaamad ugu ahaa magaalada markii dambena ay magaciisa u qaadatay magacyada kale ee baardheere loo yaqaanay waxaa ka mid ahaa baardheere jameeco baardheere waxay magaalooyinka iyo deegaanada kale uga duwan tahay inay intooda badan ku bilowdeen ganacsi iyo celal biyoodiyo deegaan noqday laakiin baardheere waxaa bilaabay dad xer ahaa oo raadinayay goob ay ka samaystaan xarun ay cilmiga ku bartaan dhammaadkii qarnigii 18aad waxaa baardheere oo wakhtigaasi ahayd dhul bannaan soo gaaray nin sheekh ah oo la oran jiray Sheekh Ibraahim oo ahaa sheekh xer ku lahaa deegaan ka tirsan Shabeelaha Hoose sheekha ayaa doonayay inuu aasaaso meel uu saldhig uga dhigo xertiisa waxa uu ka tirsanaa dariiqada Axmadiyada oo wakhtiga dagaal adag kula jirtay dariiqooyinka kale sida dariiqada Qaadiriyada Sheekh Axmed ayaa soo gaaray daanta bari ee webiga Juba wuxuuna halkaasi ka dhisay masaajid yar oo xarun u noqday ardaydiisa jameecada ayaa loo yaqaanay Ubeerey ama Cambuurley oo loola jeedo qamiisyadii waaweynaa ee ay xertu caanka ku ahayd muddo kadibna baardheere waxay noqotay xarun weyn oo ay leeyihiin xerta Axmadiyada waqtiyadii ay xertu aad u soo shacbaxaysay baardheere waxay noqotay golo weyn oo lagu fidiyo diinta Islaamka waxaa bilowday in si aad ah lagu soo guuro iyadoo ujeedadeedu ahayd doonis barasho diinta Islaamka sidoo kale waxay noqotay goob ay u soo baxsadaan dadkii diidanaa xukunka saldanada Galladi oo waqtiga ka talinaysay deegaano badan oo koonfurta ah kala duwanaanta afkaarta dariiqooyinka ee u dhaxeeyay xerta iyo saldanada Galladi iyo sidoo kale saldanada oo ka caraysnayd dadka u baxsanaya dhanka baardheere ayaa keentay inay cadaawad dhex marto xertii Ubeerey iyo suldaankii Galladiga bilowgii qarnigii 19aad waxaa aad u kordhay tirada jameecada dad badan oo ka kala yimid dhulalkii baardheere u dhowaa iyo kuwa deegaano fogfog sida Harar iyo Kismaayo ka soo guuray ayaa imaanayay baardheere cabsidii ay ka qabeen saldanadii Galladiga iyo sidoo kale xurgufyadii u dhaxeeyay dariiqooyinka oo xilliyo badan dagaallo isku bedeli jiray ayaa keentay in jameecadii baardheere ay samaystaan ciidan xoog leh waxayna ku fikireen inay samaystaan maamul weyn oo ay hoggaanka xertu u hayso waxay sidoo kale dhisteen qalcado ku hareeraysan magaalada oo laga difaacayo weerarada kaga imaan kara maamuladii ay wakhtigaasi cadowga u arkayeen waxaa taariikhda lagu sheegaa in xilliyo badan ay duulaanno ku qaadeen deegaano u dhow baardheere iyo kuwo ka fogba sida Baydhabo iyo Luuq markii ugu darnayd waxay ahayd weerarkii ay jameecadu ku qaaday Baraawe oo wakhtiga ahayd xeeb muhiim ah oo uu dhaqaale badan ka soo galo saldanadii Galladiga sidoo kalena ahayd xarun aad u weyn oo ay leeyihiin dariiqada Qaadiriyadu arrintan ayaa waxaa aad uga carooday saldanadii Galladiga oo dareentay in duulaanka Baraawe uu ahaa diilin cas oo ay jameecadu soo dhaaftay waxaa sidoo kale weerarkan uu digniin adag siiyey dariiqadii Qaadiriyada oo dareentay awoodda lixaadka leh ee kaga soo wajahan dhanka jameecada baardheere waxaana lama huraan noqotay in duulaan lagu qaado baardheere si looga hortago awoodda xoogga leh ee ka soo ifbaxday deegaankaasi suldaankii Galladiga ayaa aruuriyey ciidan lixaad leh oo duulaan adag ku qaada baardheere taariikhyahanada ayaa sheega in suldaanku diyaariyey ciidan gaaraya 40,000 oo dagaalyahan oo uu ku soo kiciyey dhanka baardheere dagaal aad u culus ayaa dhex maray jameecadii Ubeerey iyo ciidankii saldanada ciidanka saldanada oo ka awood badnaa difaaca jameecada ayaa aad u laayay xertii baardheere waxay sidoo kale dab qabadsiiyeen guryihii deegaanka iyo xarumihii xerta dagaalkan ayaa noqday mid lagu tirtiray awooddii iyo jiritaankii xertii Ubeerey ama jameecadii baardheere waxaa la laayay intii badneed culimadii hoggaanka u ahayd xerta baardheerana
waxay noqotay goob laga guuray oo cidlo ah. muddo 20 sano ah ayay xaaladaasi ku jirtay. burburinta jameecada waxay kor u qaaday xukunkii saldanadii Galadiga oo waqtigaa wixii ka dambeeyay isku fidisay deegaanadii u dhowaa Baardheere. dadkii dhulkaas deganaana waxay u aqoonsadeen inay tahay awoodda keliya ee ka jirta deegaanadaasi. muddo kadib waxaa dib u bilaabmay in dadku ku soo laabtaan Baardheere, gaar ahaanna waqtiyadii ay sii daciifaysay awooddii saldanadii Galadiga. markii uu gumaystuhu dalka soo galay, Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa isku qabsaday kii qaadan lahaa deegaanada dooxada Jubba ilaa dhulka NFD. kadibna waxa ay ku heshiiyeen in Ingiriisku uu qaato dhulka NFD, Talyaanigana la siiyo dhulka dooxada Jubba. Baardheere waxay ka mid ahayd deegaanadii uu gumaystaha Talyaanigu aad u daneynayay inuu gacanta ku dhigo, halka ay ku taallo oo u dhoweyd xuduuddii ay kala xariiqdeen Ingiriiska iyo Talyaaniga, iyo sidoo kale Talyaaniga oo awood dheeri ah saarayay helidda deegaanada webiyada ku yaala iyo kuwa xeebaha leh si uu dhaqaale uga sameeyo. gumaystaha Talyaanigu wuxuu Baardheere ka dhisay xarun maamul. wuxuu sidoo kale u aqoonsaday inay noqoto degmo hoos timaada gobolka Jubbada Sare. markii xorriyadda la qaatay, Baardheere waxay noqotay degmo rasmi ah, waxayna hoos tagtay isla gobolkii ay ka tirsanayd xorriyadda ka hor ee Jubbada Sare. xorriyadda kadib, gobolladii ugu horeeyay ee wax ka beddelka lagu sameeyey waxaa ka mid ahaa gobolka Jubbada Sare, waxaana laga jaray gobolka Jubbada Hoose. Baardheere waxay ka mid noqotay degmooyinka lagu daray gobolka Jubbada Hoose. muddo kadib, dowladdii Kacaanka ayaa gobolka Jubbada Sare u kala qaybisay dhowr gobol oo uu ka mid yahay gobolka Gedo. Baardheerena waxaa loo wareejiyey dhanka gobolka Gedo. Baardheere waxay ka mid tahay degmooyinka wax soo saarka beeraha dalka kaalin weyn kaga jira. waxaa beeraha Baardheere ka soo go'a dalagga ay ka mid yihiin basasha, sisinta, galleyda, liinta, babayga iyo cambaha. sanadkii 70meeyadii ilaa laga soo gaaro 80maadkii, Baardheere waxay ahayd degmada kaalinta koobaad kaga jirta soo saaridda basasha oo ka mid ah dalagyada muhiimka u ah qutul daruuriga dalka. wax soo saarka beeraha Baardheere ayaa loo suuq geeyaa magaalooyin badan oo dalka ah iyo qaar ka mid ah dalalka dariska ah. juqraafiye ahaan waxay dhacdaa waqooyiga dhulbaraha. waa magaalo cimilo ahaan kulul. cimilada Baardheere ayaa ku habboon beerashada dalagyada ku baxa heerkulka sareeya. Baardheere waxay sidoo kale leedahay tog biyo mareen ah oo loo yaqaano tog weyn. togga ayaa aad u buuxsama xilli roobaadka, wuxuuna marka uu aad u buuxsamo ku fatahaa gudaha magaalada. wuxuu sidoo kale waxyeelo u geystaa beeraha oo uu dalagooda biyaha raacsiiyo. webiga Jubba ayaa sidoo kale xilliyo badan ku fatahay magaalada, khasaare badanna geystay. culayska ugu weyn ee wax soo saarka beeraha saamaynta ku noqdana waxa ugu horeeya abaaraha oo waqtiyada qaar sababa in webigu uu biyo yareeyo ama guro. sidoo kale webiga Jubba oo sagxadda dhulka ka hooseeya awgeed waxaa adag soo saarka biyaha lagu waraabinayo beeraha, taasi oo ka dhigaysa in la adeegsado matoorada biyaha soo saara oo culays dhaqaale ku ah beeralayda. amni darrada iyo dagaalada qabiilka ayaa sidoo kale saameyn xooggan ku yeeshay wax soo saarka degmada. Baardheere waxaa xilliyo badan ka dhacay dagaallo dhex maray kooxo kala duwan oo doonayay inay gacanta ku dhigaan. cimilo ahaan, Baardheere waa magaalo aad u kulul inta badan bilaha sannadka. xilliyada qaar ayuu heerkulku gaaraa wax ku dhow 40 digrii. bilaha jiilaalka, celcelis ahaanna cimilada magaalada ayaa u dhaxaysa 30 ilaa 35 digrii. webiga Jubba ayaa magaalada dhex mara, wuxuuna xaafadaha degmada u qaybiyaa 2 dhinac. Baardheere waxay ka kooban tahay xaafado ay ka mid yihiin Buulo Kuulow, Horseed, Wadajir, Howlwadaag, Buulo Garas, Buulo Kaskey, Buulo Kurmaan iyo kuwo kale. waxaa sidoo kale jira tuulooyin badan oo ku yaala daafaha magaalada, kuwaasi oo hoostaga Baardheere.